kulanti waxaan wanaagsan dadkaana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa studio-heena magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka. Ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijkeenan idinku soo fool leh oo aan idinku soo gudbin doono ama aan ku falanqeyn doono arrimaha xaaladda guud ee siyaasadda iyo wadciga Soomaaliland. Maxaa ka jira in dawlad laga sameeyay dalka dibadiisa? Su'aashaasi ayaanu hoos ugu daagdeegi doonaa. Waxa isla barnaamijkan ila igarab fadhiya Mustafa Martin oo inta badan arrimaha dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshada dhinaca Soomaaliland aanu ka wareysano. Marka uu wareysa aan studio ku soo dhaweeyo Martin. waad mahadsantahay cali. waaye aan barnaamijkeena guud galno Martin. marka uu horeeya maxaa ka jira in laga sameeyay nidaam ama system ama dawlad dalka dibadiisa? arrintaasi way jirtaa cali, waana dhab. waxaana ku jira anigu dadkii arrintaa ka qayb qaatay muddo dheer bay imika socotay ilaa 3 bilood. waxay isu yimid dad la advisory council amba elective committee ayaa isu yimid dhowr jeer oo arrimaha noocaas isla soo hadal qaaday. muddo dheer baa la isku guda jiray. arrintaasna waxaa lagu gunaanaday in lagu dhawaaqo systemkaas oo la yiraahdo United Somaliland Front. waa dawlad ka jirta qurbaha, waa dawlad la yiraahdo government in exile. dawladdaas marka waa lagu dhawaaqay, waana maamul jira. dadkii ka qayb qaatay arrintaa horkacayna waa ku jiraan. marka ma dhaqdhaqaaq siyaasadeed ba urur dhaqdhaqaaq siyaasadeed mise waa dawlad rasmi oo sidii dawladnimadii u dhisan? urur dhaqdhaqaaq ma aha, waa dawlad rasmi ah oo jirta oo dibadana ka jirta gudahana ka shaqayn doonta. waa system amba dawlad la yiraahdo government in exile oo horena adduunka uga jiri jirta oo soo shaqaysay imikana bilaabantay oo ka shaqayn doonta Soomaaliland. dawladdaasi marka iyay mas'uul ka tahay, iyay matashaa? waxay mas'uul ka tahay dadkii dhammaan ku bahoobay 1990-gii deegaanada Soomaaliland ee qaatay aqlabiyadii la oran jiray Soomaaliland. dadkaas oo ay markaas fursadihii iyo hanaankii ay wadeen waayay ayaa dib isu abaabulay oo markaa doortay inay sameystaan government in exile la magac baxday United Somaliland Front. marka waa isabaabul guda iyo dibadba, laakiin xooggiisa waxaa ka qayb qaatay dadkii dibadaha joogay ee la oran jiray expatriates ee ka yimi deegaanada Soomaaliland oo dhan ayaa gartay inay muhiim tahay inay sameeyaan shadow administration amba government in exile amba United Somaliland Front. marka waa dareen guud oo ay ka yimaadeen ummadda oo dhan deegaan ahaan gaalada Soomaaliland. laakiin Mustafa, sidaan la socono Soomaaliland imika waxaa ka dhisan dawlad. dhawaan baa loo doortay madaxweynahaas oo lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi. sidee u dhici kartaa iyadoo dawlad dhisan tahay in dawlad kale ka dul sameysaan? waxaa jirta horta dawladdan iyo maamulkan aad sheegtay maamul muu ahayn ku yimi si rasmi ah oo ummaddu ay dooratay oo xalaal ku yimi ma ahayn. waa maamul ay qaadacday majority-ga waddanku. marka dawladdii rasmiga ahayd saxda ahayd ma aha, codna kumay soo bixin. waa dawlad ku timi maroorsi. marka United Somaliland Front waxay diidan tahayba dawladda la magac baxday jeegaanta, waana system ka gedisan systemkaas. haddaynu dib ugu noqonana gudaha waan ku faahfaahinay. waa system isagu ka jiri kara Soomaaliland dibad iyo gudaha labadaba. xagee laga dhawaaqay dawladda marka? waxaa laga dhawaaqay dawladda dibadda waddanka oo dhan, Mareykanka, Yurub. waa abaabul cusub oo imika la unkay oo imika dhawaaqiisu bilayahay oo gaari doona gobolada Soomaaliland oo dhan haddii Ilaahay ka dhigo. waaye yaa ku dhawaaqay? waxaa ku dhawaaqay elective committee amba koox la magac baxday elective United Somaliland Front. elective amba councilkii u horeeyay oo markaa fadhiistay ayaa go'aanka gaadhay, aqlabiyadana soo saaray. saaka waxaanu dirnay qoraalkii horeeyay la oran jiray concept paper waanu dirnay international community-ga, United Nations-ka, higher institutions-ka iyo adduunyada wixii diblomaasiyad ku shaqeeya oo dhan. marka go'aanka waxaa qaatay selective committee-ga inta markaa gacanta ku haysay, laakiin guud ahaan waxaa loo soo bandhigi doonaa wax allaale wixii ummadda raba inay ka qayb qaataan guda iyo dibad labadaba. yaa idin dirsaday markaa dawladda? waxaa noo dirsaday arrintan waxay ku timi calow. waa su'aal wanaagsan. waxay ku timi baahi weyn oo loo qabo in la helo iskaashi iyo cadaalad iyo sinaan iyo midnimo. arrintaa waxay ka soo ukuntay dhammaan ummadda reer Soomaaliland oo dhan. waxaana dirsaday waxa weeyaan dareenno hore oo qabnay oo ahayd in la sameeyo mustaqbalkii ummadda Soomaaliland, in la sugo Soomaaliland xuduudaheedii, in la sameeyo Soomaaliland isku filan oo iskaashata oo dhaqaalaheeda
iyo arrimaheedana wada difaacan karta arrintaas markaana dirtay waana self reliance anagu aan iska xil saarnay oo aan cidna haba yaraatay ka sugan inayna dirto laakiin anagu citizens of Somaliland anagu dadkii aqoonyahanka ahaa dadkii wadanka u dhashay ayaa go'aan ka gaadhnay inaan sidaas sameeyno calow go'aanada dad un baa gaadha anigu waxaan ka mid ahay dadkii go'aankan gaadhay ee ku dhaqaaqay ee sameeyay arrintan go'aanka Somaliland dad baa gaadhay go'aanadii Soomaaliya lagu mideeyay dad baa gaadhay Mareykankan haddaad eegto taariikhdiisii tii baadhigi dad baa gaadhay ummadda cid un baa horkacata horseedkeeda annagaa lahayn annagaana intan wadayna waaya nidaamkan iyo dowladdan cusub maartino markaa ma reer bay matalayaan ma qabiil bay ka socdaan ma reer Somaliland oo dhan ba madada isu tagayba bal faahfaahin inta su'aashaas waxa weeyaan Somaliland horta haddaad eegto reeray ka kooban tahay maamul baa la isugu yimid 1990 la oran jiray Somaliland reeraha Somaliland oo dhan baa ku boobay maamulkii waxa ku dhacay in imika dadkii loo inkaday ay ula baxeen sheegan laba reer isku gacan saareen salaadiina u yeesheen in adduunyada oo dhan ka arkanay dadkaasi waxay markaa reer ahaan u bedesheen qalabkii iyo ciidankii iyo saami qaybsigii ummadda dawladda lagu wareejiyay waagii riyaale ayay u bedeleen reer marka waxa weeyaan intii markaa wadanka deganeed oo dhamina waa baahi bay u qabaan inay sameystaan maamul marka United Somaliland Front reeraha oo dhan way ku jiraan reerana kama maqnaa waaya yaa ka madaxweynaha waxa ka madaxweynaha markii committee-gaas uu fadhiistay qofkii ugu horeeyay la isla qaatay inuu madaxweyne ka noqdo waa aniga oo Mustafa Martin Maxamed anigana mas'uuliyadda qaatay calaw arrintaasna waxa weeyaan waa arrin qaadanaysa 6 bilood ilaa sanad inta ay dadku isu imanayaan arrintaas kaashi weyn ka sameeyaan laakiin United Somaliland Front maanta magaceeda anaa ku hadlaya aniga ka madaxweynaha aniga ummadda u gudbinaya aniga dadku wuxuu u baahan yihiin igala soo xiriiraya laakiin calaw waxaan ku darayaa arrintan anigu aan madaxweynaha ahay maaha arrin centralization keedu yahay centralization kaligeed fadhiya anigoon maaha laakiin wax loo soo bandhigayo ummadda ka qayb qaadanaya reer Awdal reer Hargeysa reer Burco reer Hargeysa iyo dhammaan waxa qurbaha jooga oo dhamay marka waa system aan soo bandhigayno dhawaan dhawaaqaaga markay maqlaan reer Somaliland inta gudaha ku jirta sidee bay u arkeen maslada dadku waa laba koox oo sidaynu ka dhanaansayno dadka badankiisu boqolkiiba 70 way soo dhaweynayaan waxaana ku dhawaaqnaa calaw waa iskaashi cadaalad iyo sinaan iyo walaaltinimo iyo badbaado qaran marka qof allaala qofkii dan kale amba muraad kale wadankaas waxaan u maleynayaa inuu qayb ka mid noqon doono way dhici kartaa dad iyagu si gaar ah naas nuujin hoose uga qaba qolooyinkan jeegaantu inay ka hor yimaadaan arrintan laakiin majority-ga wadanku way qaadanayaan kuwaana dacwad ayaan la furaynaa inay tahay waxaan badbaado qaran in iyaga laftigooda ay badbaado u tahay aynu arrimahaas ka wada shaqeynana waa muhiim bal inta aynan eegin nidaam caynkaas oo kale dawladaha ku soo dhaqmay ama meelaha caalamka laga dhaqmay waxaan jecelahay inaynu eegno marka ugu horeysa baahida loo qabo dawlad noocan oo kale oo dibadda laga sameeyo iyadoo ay dawladda gudaha ka jirto waa maxay baahida loo qaba in la sameeyo dawlad aad iyo aad horta sidaad la socoto waxa ka dhacay Somaliland arrin aad iyo aad u xun xukun military ayaa Somaliland gacanta u galay dawlad imika la yiraahdo sheegaanta taasi waxay dabada dhigtay majority-ga dadkii gobolada ku nool oo dhan inay ka xiriirmaan dawladii laba arrimood bay markaa dhacaysa calaw inay dadkii dawladda ka xiriirmay isu mideeyaan qabaaylahan amba inay system la yimaadaan mar haddii sheegan wadanka maamulkeedii sheeganayso dadkii kale waxay noqonayaan wax qabaayila iyo wax shufta ah sida kaliya markaa laga hortagi karaana waa in maamul kale oo garabkiisa yaala la sameeyaa waana arrin ay soo dhaweynaysa international community-gu oo ku jirta xeerarka adduunka waana arrin difaac u noqonaysa dadkii wadanka joogay waayo haddii maamul iyo iska hor yimaadaan reero waxay noqonaysaa qolan ay noqoto shufto qolan ay noqoto dawladii laakiin imika waxa lagu wada tashanaya waa laba system oo isbarbar yaala sida Somaliland iyo United Somaliland Front wayahay waxaa jiri jiray ama aynu dhegta ka maqli jirnay Awdal State niman ku dhawaaqay oo iyaguna dibadaha joogay dhinacan Sool ayaa iyaguna waxa jiray Khaatumo iyo SSC nidaamyo caynkaas maxaad kaga duwantiin idinku kuwaas waxay ahayn autonomous regions bay ahayn tani waxa weeye waa umbrella government waxa weeye systemka Somaliland oo dhan oo la mideynayo weeye waa dawlad iyadoo rasmi ah oo la yiraahdo expatriate government amba government in exile maybe waxaan u maleynayaa calaw inaynu macnayno government in exile taariikhdeeda siday ku timid si marka dadku fahmaan waxaan wuxuu yahay qaramada midoobay ma ogoshay nidaam caynkaas oo kale ah dawladuhu ay sameystaan halkaas weeye calaw halkan doonay sul taagno 1945 markii dagaalkii labaad ee adduunku dhacay ee Germany ay wadamo badan oo Yurub qabsatay waxa dhacay wadanka la oran jiray France inay dawladii markaa gacanta ku haysay qaxooti noqotay
oo ay degtay dalka ingiriiska waxaa horkacayay nin markaa la oran jiray de Gaulle markaa wuxuu ka sameeyay wixii la oran jiray government in exile wadanka ingiriiska United Nations markaa arrintaa way ka fadhiisteen waana ansixiyeen inay jiri karto markii xaalad dagaal yimaado amba xaalad cabsiyeed oo military inay adduunku samaysan karo government in exile wadamadii bariga ku najaxay waxaa kamid ah wadanka la yiraahdo France waxaa kamid ah Yugoslavia kamid ah wadamada imika soo galay ee Faransiiska marka lagu daro waxaa kamid ah imika Ukraine oo 6 bilood ka hor samaysatay wadanka la yiraahdo Chile waxaa kamid ah wadanka la yiraahdo Haiti waxaa kamid ah East Timor hadda imika waxa ku dhawaaqaysa iyada laftigooda qorshayaal laga wado Kenya Raila Odinga isaga laftigiisa arrin noocaas ayuu wadaa marka waa system United Nations ay ogoliyeen arrintan caro waa arrin legal way government in exile way jirtaa waxay United Nations soo saareen 5 qodob oo kale in laga shaqeyn karo government in exile inay samaysan karto ciidan iyo military ka shaqeeyo xuduudaha wadanka waxay kaloo soo saareen inay diblomaasiyad adeegsan karto wax la wixii wadan kale ay la hadli karaan iyagoo kala xaajoonaya danahooda gaarka inay nabadgelyadooda iyo security-gooda sugi karaan iyo inay qaadan karaan astaan calan iyo astaan card ID iyo inay samaysan karaan intaba dhaqaalahana meesha ka helayno oo dhan iyo waxaas oo dhan waa qayb aanu gacanta ku haynayada laftigeeda marka waxaas oo dhan charterka United Nations wuu ogoliyay waxaan ku daray xitaa Germany ee ugu dambeysay markii dagaalkii labaad ee adduunku dhamaaday ee Russia ay qabsatay meeshii la oran jiray Bonn iyo caasimadii kale Germanka Berlin waxa dhacday in la sameeyay wixii la oran jiray administration magaranaysa government in exile oo qaybtii Berlin marka ay ahayd iyadoo dawlad u jirta qaybta Bonn marka systemkaasi uu jira Germany Federation kuna uu baas gareeyay marka waa system xalaal oo xor oo jiro wadan kastana laga suurtagelin karo weeyaan sidee wadanka u gaari kartaan ololahan imika ku jirna waxa weeye horta go in introduction stage kibaan hadda ku jirna soo bandhigii horeysay gudaha iyo dibadda imika waa la isku xidhanyahay wadankiina dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo weyn ayaa ka jira gobolada iyo dadka systemkan waa system lagu soo wada xidhmi doono oo dhawaan lagu wada dhawaaqi doono talaabooyinka u horeeya Martin isleedahay aad qaadaan waa maxay talaabooyinka horta u horeysay waxa weeye inaan ummadda reer Somaliland dacwadan aan wadno u sameeyno oo aan nahno qadiyadii Somaliland farahay ka baxday Somaliland wada jira oo isku tashatay oo iskaashi adag leh ayaa wax ka tari karta Somaliland Soomaaliya la gorgortami karta calaw mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed maanta meel kasta uu joogo waa isku wada mid ummadda abaaro ku dhacay xoolihii ka baxeen silaca inta leeg dhabarka u qaatay maanta waxay u baahan tahay wada jir iyo iskaashi marka dacwadan u sameeyna waxa weeye wadankan jeegaan ma xukumi karto mana la aqbalayo lagamana gayoon karo marka United Somaliland Front waxa weeye qorraxdii ku soo bixi lahayd jeegaanta qorraxdu markay ku soo baxdo jeegaanta 2 mirir ma sii joogto marka tan waa qorrax u soo baxday ummadda reer Somaliland waa iskaashi caalami ah reeraha deegaanada dadku waa arrin soo dhaweynaysa wada hadalkii ummadda reer Soomaaliya oo huraysa in ummadda Soomaaliyeed ilmaha Soomaaliyeed uu nolol iyo sharaf iyo ciis iyo wanaag ku joogo ilaahay meeshan ku abuuray marka waa system adag oo soo taray way hadalkaagan maanta Martin Mesleeday dad fara badan buu ka careysin doona ama aan raali ka noqon doonin oo ka soo horjeesan doona in dawlad Somaliland dibadda laga sameeyo runtii maya arrintan waa xalkii u weynaa ummadda reer Somaliland ay ku kacday maanta calaw Somaliland waxay ku jirtaa heerkii u liitay ku jirtaa waxa possible in dagaalo cusub ka dhacaan arrintan waa arrin badbaado qaran waa arrin laba system ay ku shiraakobi karaan ku wada tashan karaan dawladda ku qaybsan karaan maamulkuna ku sugi karaan United Somaliland Front waa arrin ay ku jirtaan samaroonka awda waa arrin isaaqa reer Hargeysa ee Burcay Hargeysa degan ku jiraan waa arrin dhulbaahanta ku jiro waa arrin warsangal ku jiro waa arrin isu wada keenaysa ummadda reer Soomaaliyeed laakiin kala siinaysa wixii xaq u lahaayeen haday noqoto dawlad tacliin iyo maamul calaw waa badbaado qaran wadankan waxa laga iibiyay carab sidoo u dhan yahay buuraheeni badeeni saldhigyadeni waa xisaabtan cad oo joogto ah oo qabanaya waxa la oran jiray jeegaanta oo u sheegaya wadankan inaan iyagu lahayn ee aan anagu leenahay United Somaliland Front waa badbaadada qaran ee Somaliland mustaqbalka ummadda Soomaaliyeedna wax ka taraysa way hadii adiga lagu doortay sida aad sheegtay madaxweyne nidaamkan ama dawladda cusub ee aad ka sameyseen shirkiinan ka dhacay qurbaha dadkii aad matalaysay ee gudaha ee isbedelka u baahnaa goormaad la xiriiraysa ama aad u tagaysaa isleedahay aad boqotid horta xiriirkaygu waa joogto xiriirkuna waa dhowr qaymood oo waxaan u kala saarnay mid diblomaasiyada mid dawladaha la xiriirno iyo mid constituency dadkii wadanka joogay aan la xiriirno programkana waa qayb kamid ah xiriirka arrintaas dadka gudaha iyo dibadda had iyo jeer arrintaas imika intii u dambeysay way la socdaan
xiriirkaygana waa joogto xiriirkaygana waxaan leenahay inay noqdaan dadkaasi dad codkor u ah oo ambassadors ah oo ku shaqeeya calaamadaha iyo astaamaha gaarka ah ee United Somaliland Front imika wiigan cala waxaan sii deynaa astaantii caadiga u ahayd ee lagu garanayay calankii iyo waraaqihii diblomaasiyadda lagula xiriirayay gaar ahaan waxaan soo xoog saarnaa dhaqaalihii iyo meelihii fanku ka soo baxayay waxaan la xaajoonaynaa saaxiibadii Somaliland haday noqoto United Somaliland Development Fund haday noqoto British iyo Danish International Community si aanu dhaqaale uga helno marka xiriirkaygu waa mid joogto oo diblomaasiyad iyo dhinac kasta u qaybsan way su'aasha ugu dambaysa ku weydiinay Martin waxa weeye hadii aad dawlad ku dhawaaqdeen dibadda joogta magacii Somaliland dibad ka duwantiin magaca imka jira maxaad kale oo kaga duwanaan doontaan calanka ma bedeleysaan caasimadda Hargeysa ma bedeleysaan maxaad isleedin aad kaga duwanaataan waxyaabo badan baan anagu bedelanaa horta calankayga anagu astaantiisa gaarka waxa weeyaan red black and blue arintaasna waxaan u keenay aan isla garanay red oo matalay ummaddu inay waxaan doonayso inay naftooda u horto waddankan naftiisa loo horay dadkan ay jeegaantu doonayso inay waddan ka boobtana naftooda ay u horayaan hadii la waayo nabadgelyo madowgii oo matalaya dadkii iyo calaamadan buluuga oo matalaysa cirkii iyo diirada ummadda Soomaaliyeed oo dhan marka saddexda midab ayaan anagu kaga duwanahay laakiin gondhigaygu waxa weeye waa qorax amba ilaa isku soo baxday ummadda reer Somaliland oo iska hortaagayso jeegaantu astaamaha gaarka ah leenahay waxa kamid ah ee xashala'aan qabyaalad la'aan sinaan cadaalad iyo wada qaybsi iyo wada difaac annagu waxaan aaminsanahay Somaliland ku tashatay ayaa Soomaaliyana la gorgortami karta wadankeeda difaacin karta waxaanu ka soo horjeednaa xaraashka ummadda Soomaaliland jeegaantu ku hayso ummadda Soomaaliyeed buuraha badda iyo dhinac kasta waxyaabahaas oo dhan ayaanu kaga duwanay waxaanu soo kaga duwanay oo kale dimuqraadiyad iyo sinaan iyo cadaalad iyo justice ayaanu kaga duwanay marka xagga dhaqdhaqaaqa waanu ka duwanay xagga astaamaha waanu kaga duwanay iyagana chapter baanu u furaynaa ay kaga tanaasulaan dhaqdhaqaaqa noocan wada marka ilaa hadda dawladdiinu waxay taagnaan doontaa madaxweyne oo adiga ah mise guddiyo kale ayaa ku samaysan oo wada shaqeysaan oo inta kadibna aad markaa dawlad isu dhan aad samaysan doontaan horta waa su'aal wanaagsan Friday anagu waxaan diray warqadii hore isaan u diray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo White House-ka waxaan u diray waraaqii horeysay African Subcommittee iyo Black Caucus-ka iyo senatorada international community-ga ilaa United Nations-ka waraaqahan u dirnoo dhan gacanta ku haystaan Europe oo dhan dadku iska abaabuleen wadan kasta haday noqoto Finland haday noqoto Ingiriiska marka ma aha waxaan anigu ku kaleeysanayo laakiin waxaan ka wada waa decentralized cala horta waa su'aal wanaagsan su'aashaas hadaan dib ugu noqdo wadan kasta wadamada qaar waxa weeye waa liberal qaar waa conservative qaar waa socialism qaarna waxa weeyaan compassionate democrat wadan kasta waxaan tixgelinaa dadkiisa Soomaaliland ee degan inay sidooda gaarka ula macaamilaan safaaradahooda iyo institutionskooda oo ay ka dhaadhiciyeen qadiyada United Somaliland Front inay tahay iskaashi midaysan oo reer Somaliland ay sameysteen oo haday deeqa ku bixin jireen ay deeqaha ka qayb galiyaan systemkan waayo systemkii jeegaanta lagu aaminay deeqaha haday noqoto Somaliland Development Fund iyo haday noqoto Danish International Fund wixiiba musuqmaasuq baa ku dhacay iyagana ma dhaafin marka dadkaasina sidooda gaarka ah ayay soo abaabulayeen marka waa system caafimaad qaba oo organic ah oo isagu isbacriminaya oo nool oo soconaya وهاجر داود أنت سيان كسو كبير برامج كاسي مانتا أو أن كجهد إني دولة لجأ أبابلي أو لجأ سمية قربها أما دلك دبديسة تاسي أو لنا سومالان سيدنا نوشة مصطفى مارتين أو قرب كي جمديك فريا أي واحد وشجع شركة قضبة كصباح إن أي هاي بندي جودو إن يسوي ومركزه هو جاميو أو كان نقضه دولة داسي مدحوينه ونقدرنا بالنظام كاسي inta uu gaaro iyo sida uu u shaqeeyo tan iyo kulankeena dambe barnaamijkan oo kala daawadayaal inta duubiga ku kulmi doono waa cali xaraado dhamaantii badinka ka tagay sida iyo nabad galiyo aad iyo aad baa mahadsantahay waad mahadsantahay